dulmiga gumaysiga u dulqaadamayne hala dilo ninkii rabowuu ahaaye naftiisana aaminay diiwaanka qaranku baldahab ku leeyahay back I am back bum oo hadana bum villa muqdisho si toos ah iga soo weeraray live-keygina waa la dejiyay waa la tuuray waana la iga xiray Facebook live-keyga aniga oo Roos markuusa ay u taqaaneen weerar ciri dhul 10,000 ayaa hal mar soo dacweysay waxa ka codsanaa YouTube leyda waxaan ka codsanaa page leyda live kan digesta waa free copyright soo xafanteen ma meel walba gaarsiiya dulmiga farmaajo iyo cidiisaba ay wadaan waxa in badan dhigihiina ku maqasheen raxween waa shabaab way isqarxisaa way dadkay dilaan raxween waxaadna aragtaa raxween hayaamaysa oo beeraheeda ka soo baxaysa oo jidadka ku tuugsanaysa oo muqdisho joogta oo meel walba joogta maxaa sababay 20 nin ee amiirada ka ah gobolada Bay iyo Bakool iyo Gado ee u dhashay beesha Mareexaan ayaa sababay maxaa sababay in la dilo wiilkii Hubeer ee ma aragtay isku soo sharaxay gudoomiyaha ma aragtay degmada maxay eeday Baardheere waxa sababay dilkiisi halkaan ku qoran yahay assassination-ka ninka u qaabilsan beesha Mareexaan ee al-shabaabka ku jira magacyadoodan idin bilaabaya Mareexaan ama 10,000 idinkoo ah inta soo weerartiin live-keyga bixiya oo tuura ama iska daaya YouTube lay lacag raadinaysa joogta hadda la dejisanaa YouTube aan la soo gala meel walba la marina anigana ilaa aan ka dhintasaan la idin daba taagnaana munaafiqiintii number 1 aan ka bilaabayna afayeenka howlgallada dhinacyada militariga al-shabaab Cabdicaziz Maxamed Cadde oo ay ugu yeeraan Abu Mus'ab waanin Mareexaana waanin Reesiyad Xuseen wuxuu ka soo jeedaa Caabud Waaq wuxuuna ka howlgalaa gobolka Gado Bay iyo Bakool waaninka shabaabkaas dhan u taliyo madaxa ka haysta number 2 madaxa gaashaandhiga al-shabaab Mucallin Cusmaan waanin Mareexaana waa madaxa gaashaandhiga ciidamada shabaab ee Bay iyo Bakool iyo Gado ninka ay ka amar qaataan way raxween hal amiir kuma lahan hal tuu kuma lahan cidnana kuma lahan warbaahinta ii geeya Jamstam Facebook-gayga Villa Muqdisho laga soo weeraray kowdha live-ka aan soo galay waa la tuuray live-kina waa la iga xiray 10,000 oo qof hal mar isoo dacweysay Mareexaan oo dhan isku soo aawo wacday shabaabkoodii iyo kii dawladda ku jiray sarkaal farmaajo u magacaabay iyo tuugti iyo wacaaladii u kacaanka dhalay kulligood inta isku soo awooya sheegteen ay Facebook-gayga soo weerareen soo xafanteen ma intaasna waxa la diidaya waa ina idinka dhagihiina furo waligay share ma codsanin YouTube lay iga shaq qaata video-ga YouTube lay lacago idin goyna video-gan sir baa ku duugan qiyaana ku duugan raxween sida loo qarribay baa ku duugan lambar 2 madaxa gaashaandhiga al-shabaab Mucallin Cusmaan waa nin Mareexaana 3 Faarax Dheere Mareexaan Cali Dheeru ka yahay taliyaha al-shabaab gobolka Gado lambar 4 taliye ku xigeenka amiir ku xigeenka jabhada amiir ku xigeenka al-shabaab gobolka Gado Cabdiwali Aadan Guuleed Mareexaan reer Xasan waa amiirada al-shabaab lambar 5 Maxamuud Ilkaase Mareexaan howraarsame taliyaha sirdoonka jabhada gobolka Gado lambar 6 Nuunow Xasan Mareexaan reer Axmed taliyaha maaliyadda al-shabaab gobolka Gado 7 Sheekh Xasan Mareexaan taliyaha wacyigelinta gobolka Gado Ibrahim Bashir Mareexaan taliyaha hoggaanka caafimaadka al-shabaab ee gobolka Gado Sheekh Xasan Qaadi Mareexaan Cali Dheere xabsiga gobolka Gado ee al-shabaab waa xabsiga raxween xiniya looga garaaco wiilashooda yaryarka ah lagu duleeyo ee la soo qabtay lagu qarqarxiyo ninka haysto waa kaasa dadka ka baro Xasan Sheekh Xasan Qaadi waa nin Mareexaan oo Cali Dheere ah Caabud Waaq ka yimid
number 9 waa ka soma number 10 abshir mareexaan reer shir waxaas ku qoran taliyaha hogaanka hubka iyo rasaasta ee shabaab ee gobolka Gado ilaa wadan kala harnay cadaab anigaba 11 Amir Khatib taliyaha howlgallada 11aad gobolka Gado Faarax aadan loo yaqaano Shureem mareexaan reer garaad labadaas nin waa mareexaan waa reer garaad waa nimanka qaabilsan assassinationka Ahmed Bashir sharkaaga muhiim ah waxa muhiim ah inaa helno dad YouTube lay ah oo videogan qaataan oo YouTube ka soo geliyo that's the important bejidka dadka iska leh baa loo baahan yahay xageen maraynay halkaanaan maraynay Soomaha labada nin Faarax aadan loo yaqaano Shureem iyo ninka loo yaqaano muxuu ahaayay Khatib waa labada nin ee Gado u qaabilsan raxaweenta ninka isa soo sharaxo raxaweeno Gado jooga iyo ninkii hadla in assassination lagu dilo assassination kay qaabilsan waa laba nin oo mareexana waxay ogol yihiin oo kaliya in nimanka mareexan oo kaliya ay degmooyinka iyo gobolada iyo tuulooyinka iyo meel walba ay wax ka qabtaan tuulo dhan oo qof mareexana deganeen ayaa nin mareexana imaanaya dawladda federaalka waxay u magacaabaysaa inuu meeshaas ka taliyo al-shabaabkina waa u ogoliin oo waa ilma adeeradiis ninka raxweena tuuladan anaa ka talinayo dhow xabad baa taqaana raggaana dilaya shabaab bay ku yihiin afka u duuban ashaadaday kugu dilayaan number 13 abaanduule qudaymi mareexaan cali dheere number 14 sarkaal Ahmed Wali mareexaan reer Yusuf Abriyorsu arma naqana wax lagu daa 15 Nuur Koray Amiir ku xigeenka mareexaan zakawaadka gobolka Gado waa ninka lacagtiina gurta waa nimanka gurta ma aragtay wuxuu u taliyaa geeli luway dhameeyay ee luway subax walba ku soo duulaamay geel ka dhacaya ilaa iyo hadama dhacaya macallin weyne geeliisi jaf ka dhigo waa kaasa dadka ka barta okay 16 taliye amni Ali Caato mareexaan reer Ahmed waa taliye ciidan isaguna ciidamadu waxa uu la dagaalamayo muxuu ahaayay Mukhtaar Ganay iyo raggiisu raggana caaw bay isku hayaan ninkaas mareexana u taliyo asaga ciidanka haysto isaga meelad waa amiir inda cadde taliyaha sakawaadka waa sheegay 19 abaanduule Faarax Maxamed Cali mareexaan reer Xasan acuud billahi shidar rajim 20 taliyaha caaga buur dheere kan buur dheere way kanna waa nin mareexana okay bay iyo Bakool amiirka zakawaadka gobolka bay iyo Bakool jaamac mareexaan oo ay ugu yeeraan naadir waa ninka laga nasan la yahay duurkii ma aragtay beeri dadka ka soo bixiyay ee umada isku baabi'inay ee liqay waa nin mareexana nimankan oo dhan waxay isugu jiraan nimanka caankii la soo shaqeeyay kuwa shalay tole SDM ta ay la dirirtay kuwa aad la dagaalanteen tuugteedin cuntay idin laysay geeliina kuruska kala bixi jirtay gabdhiina kufsan jirtay oo dili jirtay waxa arkaysa qof raxweyn isweydiinay su'aasha maxaa aniga la ii shabaabayna maxaa aniga shabaabka uga carara mareexan ba shabaab ah adiguna ku shabaabayna dhulkaagiina kaaga dhaxla waba intaasba 20 nin oo amiirada ugu sarsareeyay ah aanu ciidan ma sheegayo nin shaah ka kariya al-shabaab ma sheegayo nin oo ma aragtay soo gura ma aragtay xaabada kaba sheekaynayo waa amiiradii waxaan kala hadlaay 20 amiir ayaa dhulka raxweyn ka howlgasha oo niman mareexana farmaajan wuxuu ka goostay hubka iyo rasaasti waa idin barya videogan copy gareeya da copy gareyn kartiin anigana Facebook live ali gala dagaalamaya 20 nin oo mareexana oo ka howlgala bay iyo Bakool iyo Gado oo dadka laynay seed u sheegi kartaa wax la igu haysto hal amiir oo raxweyn kuma jiro soo xafanteen ma waxa idin sheegay marka raxweyn ilaaha idin maqan adeerkay tol haduu isweydiinayo su'aasha farmaajo muxuu mushaarka kaaga goostay muxuu rasaasta kaaga goostay farmaajo kaama yeelay raggan ilma adeeradiisa howlgalka ay ku dabargoynayaan raxweyn inuu isaga ka hor yimaado adduunka kama dhicin nin adiga aad la dagaalamaysid misana hub iyo rasaas aad weydiisanaysid saraakiish raxweyn farmaajo wuu wada casilay wuxuuna ka dhigay rag home rest ah sababta aad ma isweydiis sababta kaliya ku haysato waa tanaa
wala isaga soo noqon doonaa tan life kana sana u wadaya raggan magacyashooda soo u wadaya mana ka haraayo mareexaan waa al-shabaab raxweena wuu u shabaabeynayaa wuuna u dowladeynayaa gadana wuxuu qof raxweena u sheegan karin waxay tahay assassination ba meeshan ka socda wiil waa lagu dilay wiil waxa lagu dilay hubaar ah wiil macallin weyno soo shariixi baa la soo ceyrsaday raggaasana soo ceyrsanay nin mareexaana kursi loo dhiibay waa ogol yihiin nin raxweena kursi loo dhiibay waa qurjuf ilaaha idin maqan